kulanti wacan dhammaan daawadayaal waa qaybteennii labaad ee wareysigii aan la yeelanay ganacsade Axmed Faarax Ducaale iyo dhibaatooyinkii uu kala kulmay maamulka Soomaalidiidka ah ee Somaliland iyo nabadoon ku sheega Boqor Cusmaan Ow Maxamuud Buurmadow. haddaadan qaybteennii koowaad daawan fadlan daawo si aad u fahanto qaybta labaad. tan iigu xigtay waa beejkii ugu madoobaa ee nolosheeda dheer. maleeshiyo beeleed deegaanka ah ayaa ii afduubtay oo waran igu muday si aan u wiiqo oo aan isku dayin inaan baxsado. waxa aan markiiba ogaaday inay horay u afduubteen maalqabeenno u dhashay deegaanka oo ay ka qaateen lacago aad u badan. waxaa kaloo ay daacad u ahaayeen maleeshiyada ii afduubtay nin la yidhaahdo Cusmaan Ow Maxamuud Boqor Buurmadow oo ilaa iyo maanta oday dhaqmeed saameyn weyn ku leh hoggaanka dhaqanka Soomaalida. tani ayaa aad iiga cadhaysiisay ilaa iyo maantadan la jooga. ninkii lahaa maskaxda welina gacanta ku hayay maxaabiisnimadayda ayaa maanta si xor ah ifka ugu nool. taa waxaa ka sii daran waxa uu sheeganayaa inuu yahay boqor qabiil. waxaan ku jiray xaalad ka baxsan bini'aadinimada abbaarihii 12 duhurnimo. inta aan ku jiray afduubka maalin walba maleeshiyada waxay ii adeegsan jireen bistooladda loo yaqaano ammaanlayda, taasoo ay ku jirto hal mir oo xabad ah, taasoo ay ku dheeli jireen ciyaarta loo yaqaano Russian roulette, ayagoo islamarkaana madaxa iga saaraya xabadda. waxayna igu yidhaahdeen ashahaado. kadibna mar walba oo aan maqlo dhawaqa keebka bistooladda wadnaha ayaa istaagi jiray oo mararka qaar is-iri hal mar may naftu ku dhaafto. sida tan dhimasho ayaa dhaantee. walwalka ah goorta ay xabaddu ka baxayso qoriga ayaa ahayd mid xad dhaaf ah, waxayna igu keentay walwal, cabsi iyo niyadjab joogto ah. inkastoo ay saamayntu xabaddu aad u daran tahay oo ay ii horseedi karto dhaawac ama dhimasho, waxa iiga darneed jirdilka joogtada ah ay igu hayeen maleeshiyadaasi. Mr. Ducaale ayaa cabbaar aamusay. anigoo og inuusan weligii warbaahinta la wadaagin arrintan ayaan waxaan u sheegay inuu cabbaar nasto, balse Ducaale ayaa igu yidhi maya, waan sii wadaynaa waraysiga. isagoo i weydiiyey maxaa caddaynood u baahan tahay ayuu si quman iigu yidhi, anigoo islamarkaana aad ula yaabay. waxa uu islamarkiiba dib u jilaacay si uu iigu sheego qaybtii ugu darneed ee sheekada. waxa uu ku bilaabay tani waxay iigu ahayd cabsi joogto ah iyo dhaawac, taasoo keentay inaan iska indhitiro waxyaabaha aasaasiga u ah bini'aadanka sida biyaha nadiifka, cuntada iyo helitaan daryeel caafimaad. waxaan ogaa dhammaan jirdilkan iyo xoogga iyo jujuubka waxa loola jeeday oo ah in la igu wiiqo, niyaddana la iga jibiyo oo aan iska caabin samayn waayo. ugu dambayntii waxaan ku khasbanaaday inaan u hoggaansamo dukumiintiyo been abuur ah oo ay doonayeen inay ku wareejiyaan milkiilanimada markabkayga. bilooyin kadib waxaa ii suurta gashay inaan ka baxsado anigoo fahmay maleeshiyada qaadka dilooday qaab dhaqankooda. ayagoo habeenkii oo idilqaadka ku dhafra ayaa galbaha ka mid ah waxaan si taxaddar leh uga baxay qolkii mugdiga ahaa oo aan derbiga si tartiib ah uga booday. ma garanaynin meelaan u socdo iyo meelaan ka imid. markii aan isku dayay inaan gaaro boostejada baska waxaan u muuqday qof niyad jabsan oo diif ay ka muuqatay, waayo waxaan xirnaa muddo ka badan bil, balse islamarkiiba waxa ay xiray booliska Somaliland sabab la'aan, halkii ay geyn lahaayeen saldhigga Berbera oo aan rajaynayay in la geeyo booliska dekadda Berbera. waxaa la igu soo celiyey kuwii ay haystay oo aan daqiiqado ka hor ka baxsaday. dabadeed wax walba waxay bilaabeen inay macno ii yeeshaan. waxay ahayd qorshe si wacan loo soo diyaariyey, iyo nasiib darro aniga oo ka soo jeeda qabiilka xifaaltanka kala dhexeeya maamulkaani. waxa uu ahaa qorshe si weyn looga fekeray in ninkan Denmark u dhashay la dhaco. qorshahaasi bilowgiisa ayuu ka dhacay magaalada Copenhagen oo ay ku lug lahaayeen 2 diblomaasi oo Danish ah. aan ku noqdo meeshii liigu hayay oo in aan ku noqdo maxaabiisnimo dib u dhici mayso, waayo horeyba si guul leh ayaan uga baxsaday. waanan samayn karay mar kale. taasi oo aan sameeyey ayaan markaan waxa aan isla markiiba raacay taxi aan ku qayliyey darawalkii anigoo ku iri Hargeysa igee. waxa aan soo galay hoteelka Hargeysa Club, waxaana u socday gabar yar oo maamulo ka ahayd oo aan isbaray Soomaalida xilliga. waxaan ogaaday in qof kasta uu ku qasban yahay inuu caddeeyo qabiilka uu yahay, taasoo ah aqoonsi muhiim ah. aad ayay iiga naxday markii ay aragtay sida aan u ekahay. waxay si qaali ah igu yeertay abti, waxayna si degdeg ah ii siisay caawimaad aan u baahnaa. waxay i dejisay dabaqa ugu sarreeya hoteelka, waxayna i siisay ilaalo hubaysan oo 24 saac ah. waxay islamarkiiba wargelisay qoyskayga oo iga caawisay in aan si badbaado leh uga tago Hargeysa. goor fiid ah oo bisha barakaysan oo Ramadaanka lagu jiro, aniga iyo dhammaan dadkii hoteelka ku sugnaa
oo aan sugayno inaan afurno ayaa boqor ku sheega ilaah baa boqor ah buurmadoobe oo wata 12 nin oo hubaysan oo ka tirsan maleeshiyadiisa ayaa albaabka hoteelka si xoog leh ku soo galay ayagoo isla markaana ii haraareeyay. maleeshiyada ayaa igu amray inaan gacmaha kor u taago deedna aan ayaga raaco. ninkan xishood la'aantiisa wuxuu muudaa inaan ahay hantidiisa oo uu i haysan karo. nasiib wanaag mar labaad looma ogolaan inuu ii qafaashto, waxaana mahadda iska leh ciidanka hoteelka ilaa uu wargeliyey maamulka hoteelka nin sharaf leh oo la yiraahdo Xasan Biid oo ahaa korneel ka tirsan ciidamada Somaliland. wuxuu yimid hoteelka asagoo wato koox askar ah oo uu iga badbaadiyey boqor buurmadow iyo maleeshiyaadkiisa. waxa uu wacd ku maray inuu ilaalin doono anigoo ah nin ay ku xeeran tahay xaqiiqda qalafsan ee colaadda qabiilada Soomaaliya. dhacdooyinkii habeenka dhacay waxay si weyn u shaaciyeen xaaladeyda, gaar ahaan Cali Maxamed Cumar oo ku magac dheer Xorxor oo ahaa maareeyaha dekedda Berbera oo sida aan ogahay ilaa iyo hadda ka howlgala Somaliland. xilligaasi kamaan war haynin, balse waxa uu udub dhaxaad u ahaa xatooyada markabkayga. dhibaatadan foosha xun ee la igula kacay ayay gaartay David Stephen oo ahaa sarkaal ka tirsan qaramada midoobay kaasoo u qaabilsanaa dhanka ammaanka Somaliland, kaasoo isla markiiba qaaday tallaabo uu ugu digayo maamulka Somaliland in ay qaadan doonaan mas'uuliyaddeeda wax kastoo ay soo gaara inta aan ku suganahay deegaanada ay ka taliyaan. faragelintan waqtigeeda ku habboon ayaa ah mid aan aad weligay uga mahadcelinayo. ku lug lahaanshaha madaxda sare ee Somaliland waxaa caddayn u ahaa kadib markii Ibraahim Cigaal uu ka xumaaday amarka ninkii u qaabilsanaa qaramada midoobay dhanka ammaanka ee Somaliland, waxaana laga mamnuucay dhulka Somaliland. miyaynan ahayn in madaxweynuhu uu xaqiijiyo ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta? muxuu iiga hiilanayaa anigoo ah nin aad u murugaysan oo waayay hantidiisa qaaliga ku ahayd ee uu lahaa? tani waxay ii caddaysay in maamulkii la oran jiray Somaliland ee xilliga uu ahaa koox burcad ah, sharci dawladeed iyo kan dhaqan Soomaali aan lahayn. qaybteennii labaad ee waraysiga aan la yeelanay ganacsade Axmed Faarax Ducaale iyo dhibaatooyinkii uu kala kulmay maamulkii Somaliland iyo boqor ku sheega ilaah baa boqor ah boqor Cusmaan Ow Maxamuud buurmadoobe. intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. la soco qaybteennii saddexaad. waad ku mahadsan tahay dhegaysigaada. fadlan gaarsii asxaabtaada si ay u maqlaan waraysigan xiisaha badan. waad mahadsan tahay. salaamu calaykum.